maanta waxaa farxad weyn inoo ah annagoo walaalaheenii reer muumin aadan iyo reer sheekh muumin reer xamar oo maanta waxaan ku yidhahdaa isugu nimid meel fagaaro ah manaxa reer sheekh muumin awowgeena reer sheekh muumin meeshuu mataqaanaa uu wax ku akhrin jiray amase uu dadka isugu keeni jiray waa isugu nimid alxamdulilah ilaaha mahadleh marka meeshan waxaa ku jira khidmadii aw sheekh muumin mataqaana kutubadii aw sheekh muumin uu lagu akhrin jiray khidmada haddana galabtii inay tahay umaleynaa mataqaanaa khatinkii saasaa isugu nimid maasha allahu tabaaraka allah ilaahay hanoo barakeeyo sanadkan sanadkiisana ilaah hana kulmiyo reer muumin aadan soo dhowaada masjidka faqrudiin waa kana si fiican u fiiriya si fiican u arka masjidkan waa masjidkii awow dhisay awow gacantiisii ayuu ku dhisay faqrudiin baa loo bixiyey adiga 400 sano miya ma aqaan ayuu 670 sida taariikhda ku arkayseen hijriya ayaa la dhisay 167 alif 1444 hadii laga gooyo intaas ayaa ah waqtigii uu maxaa la isaga masjidkan uu dhisan yahay oo la dayactiray aad baan ugu faraxsanahay kulankan isbarashada ah aan ku nimid xamar weyne iyo walaalaha reer sheekh muumin anoo matalaya qurbo joogta reerka laba dhinacba haday tahay koonfur iyo haday tahay maaragtay gobolada dhexeentaba aad baan ugu faraxsanahay isbarano maantay waxaan hadda xafladan ku duubaynaa masaajidka faqrudiin sidoo kale waxaa soo ajiibay oo soo raacay walaalo badan oo reer muqdisho ah ama deegaanku ah muqdisho aad baan ugu faraxsanahay inaan taariikhdii awoowe sheekh muumin haday tahay gurigiisii haday tahay masaajidkii iyo haday tahay awlaadiisii intaba inaan kulanno isbarano aad baan ugu faraxsanahay walaalihii igu horreeya taariikhda ka hadlay faahfaahiyey intay ka hayaan insha allah waxay noqon doontaa xusuus waxaan sidoo kale soo aragnay kitaabadii awow gacanta ku qoray taariikhdiisii maaragtay soo jireenka ahayd wax badan baa noo dhiman tusbixiisii waxyaaba badan oo ka tegey taariikhda markay noo saabaxdo maasha allah la duubi doonaa sidoo kale waxay wadeen walaalaha reer xamar weyne waxay ugu yeeri jireen xuska ama maaragtay quraan akhriskii awoowe muddo bil ku dhow maanta ay ahayd in la qatimo isbarashadii iyo aragtideenii baa xoogaa maaragtay waqti gelisay walow galabta la yiri waa lasoo qatimi doonaa lasoo gabagabayn doonaa marka xigta waxaa jeclaan lahaa walaalahaygi inaan halkan kusoo dhaweeyo markuu halkan yimid caruurtiisa oo halkan mataqaana hadda jooga waa 3 waa reer sheekh muumin caruurtiisa oo waxayna kala yihiin reer maxamed muumin reer xaamud muumin iyo reer amiin muumin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan isbarashadan runtii akhyaartiiga horeysana ka hadashay awoowe iyo taariikhdiisii masaajidkiina aan joogno anigu anoo ka mid ah dadka ku nool muqdisho wax badanna joogay muddo 9 sano ka badan haddana maanta maalin gaara bay iiga tahay runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa hadda wixii ka dambeeyay insha Allah inay ka sii siyaadi doonto insha Allah barashada iyo maaragtay booqashadu intaba maanta macnaheedu waan qadaynay meesha inaan maaragtay aan isku baranno runtii aad iyo aad wax qiimo weyn loogu fadhido weeye
aad baan ugu faraxsanahay maantay helo muddo dheer kala maqnayd annagoo ah inaanu ishelno bifadlilaahi bay ku ahaatay anigu hadda weligeyba sheekada waa ku hayay sheekh muumin oo afar kaliya dhalin oo waxaas abka soo gaarbay laakiin maanta iyadoo xaqiiqa baan dhex taagnaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin kulankan iska kulan diimeed buu ahaa mid kan ka ballaaran oo aan kow ahayn oo aan laba ahayn oo saddex ahayn oo afar ahayn oo 10 ahayn baa soo socda waynu isdhex geli doonaa dhaqan ahaan iyo hidde ahaan iyo dad ahaan aad baan maanta kulankan aad ka khayr badan insha Allah oo ah kulan ay isku yimaadeen reer Sheekh Muumin oo dhan kuwa ku nool gobolada dhexe iyo dad kuwa xamar ku nool waa kulan aad u qiimo badan oo aan dhihi karo kulamadii xamar ka dhacay kulamada ugu qiimaha badan ka mid yahay sababtoo ah waxa isku bartay oo isku arkay dad wada dhashay oo in badan kala maqnaa laakiin xogaha la hayay inay dadka ay jiraan inta aanu ka ogahay macnaha waa maqli jiray inay jiraan reer dad reer muumin aadana laakiin buur xakaba iyo meelaha sida ninka hore sheey baan ku maqli jiray reer Sheekh Muumin xagaas maanta way tahay maalin jimcaha waxa isku imaanay booqashadii iyo xuskii Allah u naxariistay oo Sheekh Muumin annagoo dhalinyaradii magaalada Muqdisho ku sugnayd waxaan joognaa xaafadda Xamarweyne oo ku yaalay hoygii Allah u naxariistay oo Sheekh Muumin iyo masaajidkiisa hadda aan ku sugnahay oo imaamka ahaa waa asagu bineeyay farxad weyn bay tahay inaan maanta soo booqanay halkaas ku imaanay waxaan ugu soo dhaweeyay walaalaha iyo Sheekh Subayr oo ahaa shawintii reer Sheekh Muumin ee ku sugnayd xaafaddan Xamarweyne runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta madashan ugu shaan reer walaalaheen ugu soo dhaweeyeen oo ugu nimid ehelkeen reer Muqdisho Xamarweyne dabcan waxa way sida hore loo sheegaba dadkan waa dad ehel oo qoys ah oo reer Muumin aadan ah dhamaan dhimantoon salaamaya horta magaca lagu wareeray saan u jeedo waxa bari la horta waxaan kamid ahay dadkii soo abaabulay ama soo helay ilmo Muumin aadan social media ku jira inta kaliya oo meesha fadhido kuma koobna adduunka dhan baa gaarsiinay in si ballaarino oo meel sare gaarsiina waarna taariikhda markii la fiiriyo adduunka gumaystu wuxuu dadku xukumi jiray xabad iyo awood maanta waxa la isku xukumaa cod iyo qoraal marka anu waxaan kamid ahay dadka codkiisa meel dheer gaarsiiya ilmo Muumin aadan inta kaliya maahan Mareykan iyo Yurub meel badan baa ku kulannay marka anu waxaan rabi lahaa waxa maanta maqlay markii labaad oo la isku yimaado inay tahay